guutooyin ka mid ah ciidamada difaaca Puntland ayaa ka soo ruqaansaday magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn waxaana soo gaareen jiida hore ee dagaalka gobolka Sool iyagoo ka qayb noqonaya howlgalka ciidamada Puntland ee ku wajahan deegaanka Laascaano ee gobolka Sool. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo la hadlayay ciidamadan ayaa ku soo dhaweeyay furinta dagaalka isagoo sheegay inay gudanayaan waajibaadkooda ciidanimo oo ay ka hortagayaan sidoo kalena ay difaacayaan deegaankooda. Cutubyadan ciidamada ayaa u ruqaansaday isla maanta jiida dagaalka ee Tukaraq waxaana si toos ah u tagay difaaca ciidamada difaaca oo qayb ka noqonaya amarada ay ka helayaan generaalada hogaaminaya ciidamada difaaca Puntland. Waxaan soo dhaweynaynaa kal iyo laab waxaan soo dhaweynaynaa magaalada madaxda dalka ujeedaan oo dawladda waxba kama maqna wasiiradii iyo golihii baarlamaanka iyo ciidamadii saraakiisha sare ee Puntland dhammaantood way idin safan yihiin way idinka mahad celinaynaa. waxa weeyaan أمامرتي يكلا دبينتي عيدانيمو الحق أكون شوكتين وبالحلقة الله يمانسان إن شاء الله بإذن الله تعالى سؤال هذا إن شاء الله خير وينقرسا وبالله التوفيق. ciidamadan ayaa sidoo kale waxa qayb ka noqonayaan ciidamo hore u joogay jiida hore ee Tukaraq halkaas oo isku hayaan Somaliland iyo Puntland. Ahmad Sham, Home Cable TV, Garowe.